saa'ilku wuxuu leeyahay in calanka Soomaaliya ama calamada kale marka loo istaago oo loo hogto diintu maxay ka qabtaa? waxaan filayaa masalada calanka iyo istaagiisa ama waxa loo yaqaano salaanta calanka ama markii hees calan la qaadayo la istaago oo mas'alo aan xamayn Soomaaliyana gaar kuma aha dunidii muslimka ee dowladaheedu dhiseen gumaystihii reer galbeedku qaybay masalada calanka ku soo dareen oy kaga tageen weye. marka haddaba intaanan masalada aniga say ila tahay dhihin dhowr masalo oo la xiriira aan wax ka tilmaamo. masaladani masalo keliya oo ama keligeedahoo basiito oo fudud maaha. waa mas'alo waxaa noo loo yaqaanaa fiqiga murakaba ah oo dhowr mas'alo isguda gashay wey. masala kood masalada calanka iyo astaan inuu noqdo, inuu calanku kor u taagan yahay, inay noqoto astaan muujinaysa xoog iyo awood iyo jiritaan, in calankii dhaco oo hoos u foorarsado ama dhulka lagu tuurana in la jabay oo la tabar beelay oo la isdullaystay ay tilmaamayso. intaa mas'alada ahi waa masale sharciga ku sugan. nabigana calaih salatu wasalaam waxaa ka sugan markuu ciidamada dirayo astaan calan iyo maro ay eegtaan buu u samayn jiray oo midabo kala duwana. a'immada xadiidkuna kutubtoodu bacdu itikhaadi alalwiyati iyo itikhaadi alraayaati iyo raaya iyo liwaa iyo calam iyo isku wada midun weeye. waa waxaan astaanahoo maro ah midabadana loo kala duwo, hal qofna uu wado oy dadka isku karsaaro meel xaruntooda inay tahay iyo halka hogaankooda inuu yahay ninkii baal marana u soo laabto dhabarka soo saaro ninkii la soo riixan iyada gadaal ugu soo durkoo difaaca ka galo bay ahaan jirtay. inay kor u taagnaato astaan quwo iyo in la jiro oo la dagaalamayo bay ahaan jirtay, ilaa qofku naftiisa uu huro oo gacan haddii la gooyo ta kale uu ku qabto oo labadaba haddii la gooyo uu ku qabta laabta geliyo ilaa lagu dilo. ghaswatu mu'ta nabigana sal slam fi saxiix calaamad bay lahaayeen raggii saxaabada oo calan bay wateen. calankuna inuu kor u taagan yahay curfiga xilligaa jiray dhaqankaasi tan iyo carabtu nabiguna alayh salaam aqbalay ee saxaabadiisa nabigu sameeyeen in calanka qofayoo taagnaaday ahayd intaa dagaal ku socdo. nabigu wuxuu yhi akhada raayata raggii buu tiriyey saddexda ahaayee la dilay waxaa qaaday zayd ibni xaaritha fa usiiba, cabdullahi ibni rawaxaa qaaday waa fa usiiba, jacfar ibni abi taalib baa qaaday fa usiiba waa la dilay. mid markii la dilaba mid baa qaadayoo kor u qaadayay oo calanka hadduu dhaco la waayaayey ciidanku hoggaankiisii in la qabsaday oo uu jabay oo astaantiisii uu isku eeganayay meesha ka baxday bay ahayd. saddexdaas saxaabi mid walba isagoo calanka kor u hayaa la dilay. uma akhadaa khaalidun min hayri imratin, saddexuu nabigu ka dardaarmay bay ahayd hebel haddii hore dhintay hebel baa hay hebel dhinta madaxdii bayna ahayd ciidanka hogaaminayay. khaalid baa qaaday min hayri imratin fa futixa lahu, dagaalkii uu ku guulaystay. astaanta haddaba calanka raggii hoggaanka ay qaadayaan ee ay haynayaan ee ay ku dhimanayaane ciidankaas baa dhowranayay. calankaa hadduu dhacana ciidankii inuu jabay bay ahayd. calanka haddii weli kor u taagan yahayna ciidanku inuu ishaysto xaruntiisii weli ay badnabad qabto oo weli xoog uu leeyahay bay astaan iyo calam u ahayd. marka taasi waa qadiyadda in calan iyo la samaysto oo la ysku soo tilmaansado oo astaan inuu kor u taagan yahay xooggii iyo jiritaankii ay tahay. qaybtaasi waa qaybta mas'aladii ka mid ahoo maradana ma aha muhiimaddu. maradan calankee la baabinayo in maradaa loo dhimanayo oo la difaacayo ma ahayn, ee macnahay xambaarsan tahay ee astaanta ah ee hoggaankii ah ee fiirsigii ah ee weli inaan xoog leenahay ee niyad dhiskii ciidanka ah bay ahayd. waxay qiimo ku lahaydee marka dagaalka laga soo noqdo ama guryaha la yimaado maynan taagnaan jireen, meel baa la iska dhigi jiray haddii la rabo. marka astaan saasa inay muujiso
oo kor ahaanshaheedii iyo kor u qaadisteedii iyo ilaalinteedii iyo ay noqoto asalka. wixii la leexleexiye lagu dardara waa mas'alo kale. inta aan kaga baxo waa masalo fiqi oo jirto oo sunnadii nabiga calaih salaam ku sugan. masalo labaad oo tilmaamayo hadda lagu soo daray oon wakhtigaa jiri jirinna masala sharcigu diiday ma aha. masalada waddanka jacaylkiisa ah oo wax fitri oo dadka ilaahay ku abuuray inay meeshay deganaayeen iyo deegaankoodii iyo meeshay ku soo koreen iyo dalkoodii iyo ay u nasab sheeganayeen ay jeclaadaan. saxaabadu markay hijroodeen saxiix albukhaari iyo hayrkiiba waxay aad ugu hiloobi jireen qaarkood maka. alaa hal abitanna leylatan ilaahu maxay biheen haddaan soo baryo lahaa meel hebliya waa ka dhihi jireen saxaabadu. nabigan cala slam waxaa ku sugan fi saxiixi markuu safar ka soo laabto ee madiine uu ku soo baxo uu degdegi jiray. walidaalika xaafid ibn xajar raximah allahu tacala fii fatxi ilbaari markuu xadiidkaa iyo kuwa kala fasiraya wuxuu leeyahay wa fiihi waxaa laga qaadanayaa buu yihi inay ku tusayo waddanka in la jeclaado oo waddankaaga aad jeceshahood u soo hilowdo. manaa wax sharci kugu dhiirigelinayo jeclow u soo hilow meel heble ma aha, laakiin waa fitra iyo abuur dadka ilaahay meel inuu meel ka jeclaado oo meeshuu sheeganayo iyo meesha uu ku soo koray ay kala qiimo badnaato u hiloobaayey. wax sharciguna ogolaaday weeye. fitrada iyo abiiciga dadkana xaaraama ma aha. marka qofku waddankiisa inuu jeclaado, jacaylkuna wax kastoo jeclaataba dee ama ilmo jeclow ama xaas jeclow ama waddan jeclow xuduuddii sharciga ee rabbi inaadan ka gudbin. hadduu waddanku waddan muslim yahayna dee waddanka muslimka in la jeclaadaayey dee nafba ha loo huraaba la yidhi dhiig ha loo daadiyo ciddii wax yeelaysa ka difaaciddiisa ee waddan muslim ka saaraysa. tana masalada labaad in jeclaa marka hore inaan baraarujiyo. masalada saddexaadee ku lamaan ilaa masalada waa murakabaan nidhi oo masale isa saaran weeye. masalada ku lamaan ee kale waxaa weeye masalada weynaynta. masalada in loo istaago ama la aamuso waa masale min baabi tacdiim ah, weynayn. masaa'ilka weynayntu iyo tacdiimintu ma wada aha masaa'il cibaada ah. waxay ku xiran tahay haddaba maqsadka tacdiiminta iyo weynaynta bay ku xiran tahay. way dhici kartaa in weynayntaa la weynaynayo min jinsi alcaadaad iyo dadka wixii la fiican markii qof intuu yimaado akhyaara oo la qadarinayo loo istaago isagu inuu jeclaysto uma bannaana, laakiin waa loo istaagi karaa si loo soo dhoweeyo. qofka ixtiraam iyo taqdiir iyo aad ku soo dhoweynaysaay made weynayn cibaado ah ma aha. marka ixtiraamka iyo weynaynta waxay farac ka tahay asal ahaan jacaylka aad jeceshahay iyo qiimaha uu agtaada ka leeyahay. haddaba weynayntu hadday weynayn cibaadaad ay gasho haddee cibaadaad bay geli. hadday weynayn aan cibaadaad ahayn oo mararka qaarkood calaamaad walaa walbaraa kula gashana hadba nooca walaa walbaraaga xukunkiisii uu lahaabay qaadan ee khaldan, sidii tii qabaa'ilka iyo qoysaska iyo magaalooyinka iyo kooxaha iyo kaleetay noqon. dadku ugaasiyay leeyihiin, ugaasaa loo istaagaa. madax bay leeyihiin, markay soo galaan baa loo istaagaa weynayn darteed. asalkuna waa curfi iyo caade iyo qadarin bay ka dhigan tahay, ma aha cibaadaad. marka mas'alada tacdiimka iyo weynayntu cibaadaadna way noqotaa, caadaad iyo ixtiraamna way noqotaa. asalkeedana waxay ka turjuntaa waxaanaad weynaynaysaay qalbigaagu makaano iyo darajo iyo qiimo ku leh. taasina waa masalada kalean raba inaan idhaahdo iyadana masaladan la xiriirtae saddexaad ee murakabka ka dhigaysa. masalada afraad ee la xiriirtahay waa masalatu tashabuh. waa masalada ugu dhow ee hadda aan isleeyahay qaabka calaamada loogu istaago
ama heestooda marka la qaadaya kama hadlahaya nuxurka heestu iyo miraheedu muxuu ka kooban yahay kama hadlayo oo calan gaar haddaanu kama hadlayo laakiin in la istaago la aamuso hadday bannaanayd dee dadka in lagu qasmo ma bannaana oo dembi laga dhiga haddaad dhaqaaqdo ama aad fadhiisato dembi laga dhigay oo lagu qasbo iyo qaab gaar ahoo loo weyneeyo waa wax dowladihii galbeedka inoo yimid ay ka tageen masaa'ilka tashabbuhuna qaar dembigana waa jiraan qaar ay dhici karta gaalnimo inay gaadhaanna way jiraan oo xukun waaxid ma wada laha oo ninkii dhar gaalada oo kaleeto u xirta xadiidka waman tashabbaha biqowmin fa huwa minhumna haddii uu ansaxo ka mid noqonshahoodaasi dee waxa uu isaga shabbahay buu ka mid noqday weeye mar walba wuu gaaloobay ma aha cinda ahlilcilmi masaa'il tashabbuhna masaa'il kutub laga qorayo axkaam kala duwan leh weeye masalada tashabbuha waxaa raaca mas'alo kale waxyaabaha tashabbuhii zamankaa saameeya wax mar tashabbuh ahaa baa markuu faafo dadkuna wada sameeyaan hadduu jinsiga caadaadka iska noqdaay xaddu tashabbuha wuu ka baxa waxaa la soo martay xilli sarwaalka waa tashabbuh bilkufaar la yidhaahdo taygu waa tashabbuh bilkufaar la yidhaahdo marba iyaga keliya ay caan ku ahaayeen bay soo martay markay ka baxday faraha dadkoo dhanna qaateen dadkoo dhanna wada xirteenna xaddii xukunkii tashabbuh uu ka baxay oo tashabbuh waad isu ekaysiisay waa wax iyaga u gaaraad xiratay wax dadku wada xirto oo u siman carabtuba markii nabig alay slam iyo saxaabadu iyo nimankii qoraysh ahaa ee gaalada ahaaba qamiis waa la wada xiran jiray cimaamad waa la wada xiran jiray wax isku midaa la sameeyey ama isku midaa la xirtay hadiya ka hor tashabbuh maaha zamanku wax waqti tashabbuha waqtina aan ahayn baa jira sida makaanka iyo goobta la joogo wax goobaha qaarkood tashabbuha gooban aan tashabbuh ahayn baa jira wax noocyo badan oo noocyo qaybo ka mida tashabbuhtay qaybna aan ahayn baa jirta marka mas'alada oo mas'alo baadhid laga hadli karo wax laga dhihi karo markii hore hadduu tashabbuh ahayd markan dambe ee dadkii oo dhan wada sameeyey asalkeedu meeluna ka soo jeedina la halmaamay weliba tashabbuhii bay baaqi ku noqon oo axkaamtiisii kala duwaneed mid ay qaadataba mise way ka bixi waa masale iska ijtihaadiyaho lagu kala duwanaan karo intaa kadib masalada calanka salaanta calanka iyo istaagiisu fuqahada zamaanku way isku khilaafeen qorana waxay ka arkeen inay weynayn ilaahay khayrkii la weynaynayo oo qismu jinsul cibaadaad ah ay tahay bay ka arkeen qorana waxay ka arkeen tashabbuh bilkufaari inuu yahay oo baabu taxriim bay geliyeen kuwa kale waxay geliyeen baab ay dhici karto inuu qofku ku gaaloobo kuwana waxay geliyeen min baab cibaadaad oo aan tashabbuhna ahayno xaddii tashabbuhana ka baxay haddii weydiay qaabka loo istaagayo ama waxaa la qaadayo maxduur sharci oo kale wax xaaraan oo sharci oo khaldan ku jirana sideeda loo saxo laakiin iyada inteeda ahaan ay bannaan tahay waa fataawadii majaamicdii iyo hay-adka fiqigii ay ku kala duwanaayeen masale waa masale iska ijtihaadi ah aniga waxay la tahay masaa'il hadda laga yaaba dee goobaha iyo xilliyada kala duwan ay ku soo beeganto ama shakhsiyaadku qaabkay u dhaqmayaan oo kaleeto inay kala yeelato axkaam kala duwan intaasaan kaga baxaya masaladaasina iyadaana ugu dambaysa xalqadeeni 65aad intaan xalqadda xigtay 66 isugu imanayno waxaan kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu